kulanti aboon oo wanaagsan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada xilli tabinteena wareed aan ku bilaabay ciidamada iyo jabadaha anfarta oo ka baxay heshiiskii xabba joojinta kaasi oo ay maanta dad ku qafaasheen oo u safrayay magaalada Addis Ababa meel u dhow magaaladaasi Awaash. sidoo kale warbixinteena waxaa ku soo qaadan doona Itoobiya iyo Kenya oo ku heshiiyay inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa kooxaha argagixisada. intaasi akhyaaray waa qodobada caawa wararkeena haatanna ku soo dhawaada iyagii oo fidsan. aan ku bilaabay ciidamada iyo jabadaha anfarta oo ayaa ka baxay heshiiskii xabba joojinta islamarkaasina maanta sida la sheegay dad u safrayay magaalada Addis Ababa ku afduubtay meel u dhow magaalada Awaash. haddaba heshiiskan ayaa waxa ay kooxdaasi ay dadkaasi u safrayay magaalada Addis Ababa ay ilaa hadda gacanta ku hayaan iyagoo sheegay inay madax furasho u hayaan. haddaba sidee arrintaasi ay u arkaan waxaanu ka wareysanay qaar ka mid ah bulshada oo iyagu noo sheegaya bal sida ay u arkaan arrintan. sidaad u aragtaa mudane Madi Xasan? bismillahi raxmaani raxiim. waxaa nagu maqal xasan oo sidaad sheegtay arrintan inay dhacday oo Hawaas lagu qabtay dad safar ahaa oo ku socday Addis Ababa oo Soomaaliyeed. marka waxa weeyaan waa jidgooyo, waxa la yiraahdaa waa shiftanimo. waxa weeyaan wadan bay dadku yihiin, wadan bay dhex socdaan, wadankoogii unbayna joogaan, meel kale ma tegin. marka waxa weeye dowladda Itoobiya uga fadhinaa heshiiskii la galay ee la sheegayay iyo tallaabada ay ka qaadato. annaguna waxaan ka sugaynaa waa dadka oo nabad qaba inay nagu soo wareejiyo oo deegaankaygii iyo dadkoogii lagu soo wareejiyo anfarina. waa dabeecadii ay lahayd oo la wala garanaya. Itoobiyana marag bay ka tahay heshiis kasta oo la galana anfari inay jabinayso, sidaasay ku caddahay mar walba inay jidgooyo samayso. waxa ay taalyari weeyaan qof masaafura oo wada socda oo socoto ah oo gurigiisii joogin oo wadankiisii saddex jooga oo danihiisa wata in maad aragtay jidgooyo loo galo. ma dagaalamayo qofkan, hub ma sito, ma hubaysno. waxa weeyaan caasimadii wadanka uu tagay. marka inay caasimadii wadanka iyo kala xilmaan deegaanadiina waa shifto waxa dhex gashay dudada u joogsatay Hawaas. maanta dadka waxaan ku qabsanay waa shiftadnimada weeye. Itoobiya kama bixin dadku, taariibna maaha. marka waxa weeyaan taa waxaan uga fadhinaa Itoobiya anfarina inayna isqabanaynin mar waliba oo inaan maad aragtaanay dad isqabanayo oo maad aragtaanay heshiis tixgelinaya ay ahayn. waa taa dee saasay ku caddahay. Itoobiyana waxaan leenahay dadkii Itoobiyaan uga fadhinaa anfarina wataa Itoobiya ha aragto. annagu waan karnaa inaan jidgooyo samayno, laakiin waa nagu ceeba. qof kasta oo anfari uu dhex mari karaa wadankayga iyo gobolkayga, meel kasta waa la wada socon karaa. dee waxaan masaafir ka doondoon laga qabsanayaaba iska yar horta. waxaa dib u furantay wadadii isku xidhaysay Diridhabe ilaa Dawanle kaasi oo dhibaatooyin roobkii ka daayay ay saameyn ku keeneen buundada isku xidhaysa ee u dhow magaalada Diridhabe oo laga dareemay zaxmad gawaadhida waaweyn kadib markii ay xidhantay wadadii ay ka marayeen ee u dhaxaysay Shinile iyo Diridhabe ee ahayd wadada isku xidha Diridhabe ilaa Dawanle oo ay adeegsadaan gawaadhida kala duwan ee xamuulka ka keena dalkaasi Jabuuti. ayaa hadda wadadaasi ay adeegii hadda dib u bilaabay kadib markii dayactir lagu sameeyay kaabadaasi u kala gudubtaa ee isku xidha Toome iyo Marmaarsa oo wadada ay ka gasho Dawanle ilaa Diridhabe. xuduudda ay ka gasho magaalada Diridhabe oo wada halbowlo u ah islamarkaasina zaxmadda iyo cidhiidhiga gawaadhida waaweyn ay magaalada Diridhabe ay kaga raystaan. wadadaasi ayaa waxaa adeegsada dhammaan badeecadaha kala duwan waxayna ku xidhan tahay oo ay ka imataa marka ay soo gaadho magaalada Shinile ama buundada meesha Shinile looga leexdo ayaa waxaa buundadaasi saameeyay roobkii ka daayay guud ahaan magaalada Diridhabe iyo nawaaxigeeda. waxaana hadda wadadaasi ay dayactir lagu sameeyay hadda gawaadhidu adeegsanayaan walow ay mari karin gawaadhida xamuulka. Itoobiya iyo Kenya ayaa dejiyay jihada lagu xoojinayo howlgalka ay ku bilaabeen kooxda argagixisada iyo horjoogayaasha iyo ciidamada qalabka sida. hay-adda sirdoonka Itoobiya iyo Kenya ayaa faray in ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgalka ka dhanka in horjoogayaasha iyo kooxaha hubaysan ee argagixisada ee ka howlgala dalalka Kenya iyo Itoobiya
ay isku soo dhiibaan. Wafdi hogaaminaya agaasimaha guud ee adeega warfaafinta Kenya Nuruddin Maxamed Xaaji ayaa safar shaqo ku gaaray oo ku yimid magaalada Addis Ababa. Wafdigan ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha Boole waxa ku qaabilay agaasimaha guud ee warfaafinta iyo nabad sugidda qaranka Danjire Radwan Hussein. Sida lagu sheegay xogta hay-addu u dirtay warbaahinta ayaa lagu sheegay in labada dal ay kala seexdeen hay-ado xog wadaaga oo ay iska kaashanayaan xog isweydaarsiga iyo arrimaha kale ee nabadda iyo amniga, iyadoo laga duulayo wada shaqayntooda. Waxaa la muujiyay in ay mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha hay-adahaasi ay marar badan shirar iyo dib u eegis ku sameeyaan. Sida laga soo xigtay agaasimaha waaxda warfaafinta Kenya Nuruddin Maxamed Xaaji ayaa waxa uu yimid magaalada Addis Ababa iyo saraakiil sare iyo khubaro si ay ugala hadlaan dib u eegista ay ku sameynayaan ajandayaasha badan ay wadaagaan labada dal. Adeega ayaa shaaca ka qaadaya in ay dejiyaan jihooyin ay ku wada shaqeynayaan sida ay labada dal u wadaagi lahaayeen ay u wadaagaan xuduud, waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga iyo qorshayaal horumarineed oo wada jira. Waxayna ku taliyeen qaabka ugu macquulsan ee looga hortagi karo kooxaha argagixisada ee ka mid tahay shan ee falalka xunxun ka wada xuduudda dalalka Itoobiya iyo Kenya. Kooxdan gaar ahaan falalka ay ku xiraan muwaadiniinta, xatooyada iyo burburinta hantida iyo xoojinta dhaqdhaqaaqyada dadka ay ku dhibaatada ku haya Itoobiya oo keliya inay waxba ka qaban karin, balse sidoo kale Kenya looga fadhiyo sirdoonkooda in ay ka wada shaqeeyaan sidii kooxahaasi loola dagaalami lahaa. Warar hadda soo dhacayna waxaa nagu maqalaa in dhalinyaradii kooxaha iyo jabhadaha canfarta ay afduubteen ay madax furashada u haysteen hadda la sii daayay. Walow aan xaqiijin karin wararkaasi, balse sida aynu maqalnay ayaa la sheegayaa in dhalinyaradaasi la sii daayay. Wixii ka soo kordhana kala soco warbaahinta wargeyska City. Gudahaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan inta ayaan kusoo afmeeraynaa warbixinteenii koobayd. haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe naga hilmaamin. haddaad nala joogteen waad ku mahadsantahay la joogistaada tan iyo kulanti dambe. Amaana Allah.